muddo bil ka yar ayaa in ka badan 200 oo ruux ay u geeriyoodeen shilalka gawaarida oo ka dhashay isku dhaca gawaarida taas oo wadayaasha baabuurta xamuulka iyo kuwa gaadiidka dadweynahaba lagu eedeeyay in si ka baxsan sida sharciga ah ay mararka qaar u kaxeeyaan baabuurta taas oo keentay inay isku dhacaan ama ay rogmadaan arrintaasi waxaa had iyo jeer ka dhasha dhimashada dadka musaafirka ah inkastoo dawladdu ay sheegtay in arrintan uga gol leedahay si ay hoos ugu dhigto amba loo yareeyo khasaaraha shilalka ayaa haddana qaar ka mida dadka reer Kenya oo aan arrimahan ay VOA kala hadashay waxay aragtiyo kala duwan ka dhiibteen amarka cusub ee dawladda ee musaafiriinta loogu diiday habeen safarka. magacaygu waa Maxamed Ali Maxamed ruuxaantii waxaan u arkaa cuna qabateen ku timi xagga socodka gobolka waqooyi bari walba wuxuu la kulmay cadaadisyo badan waxaa jiray xiriyaha qaxootiga xataa habeenadii socodku yar yahay waxa dhici kara waxyaabo emergency qof ku yimaadaan oo u bixi karo eheladiisa maxay gobolada kale loogu diidi waayeen ay u baxaan markii la joojiyay in labada gelin safarada dhaadheer baabuurada dadweynuhu ay galaan oo maalintii kaliya la ogolaaday ayaa shirkadaha qaar ay ku dareen lacagihii ay dadka ka qaadi jireen xarumaha ugu badan ee shirkadaha gobolka waqooyi bari u safray ay ku leeyihiin xaafadda Islii ayaan tagay halkaas waxaad kula kulmaysaa dad badan oo ganacsi yar oo xilliyada ay dadku safrayaan laga iibsado ku haysta. magacaygu waa Cabdiraxmaan shaqadeydina waa biyoolo kaasaan hay area-gan Islii ka shaqeysta hadda maadaama basaska ay dawladda bedeshay saameyn badan ay ku yeelan saameynta waxa kamid ah gaariyaasha oo habeen bixi jireen hadda dharar baxayn dhararta waxa ma xumaan gaariga isla waqtiga soo galaan saacad ka bacday baxayn dadka ay ku wada taganay baxayn ay ku la baangeynin saas awgeed ay biyaha u liiteen qaar ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadaha socdaalka ee gawaarida ee aada gobolka waqooyi bari oo aan la kulanay ayaa noo sheegay in arrintani ay saameyn xagga dhaqaalaha ku yeelatay laakiin ay u hoggaansameen amarka dawladda ka soo baxay oo ay joojiyeen socdaalkii habeenka ee gawaarida ahayd. magacaygu waa Ila Ali Loole waxaan ka mid ah mas'uuliyiinta kamaniga u shaqeeya saabiriin joojitaanka la joojiyay safarta habeenkii habeen socodka dhibaatooyin badan baan kala kulannay because dadka waxay jecel yihiin habeenkii safraan hase ahaatee maadaama ay dawladda amarka bixisay khaasatan NTSA waan ku qasbanahay inaan u hoggaansanaa sharciga oon raacnaa laakiin waxay nagu keentay caqabado fara badan maadaama dadka ay jecel habeenkii inay safraan habeenkii inay socdaan anaga waxaan ka baxnaa Garis waxaan ka baxnaa Nairobi waxaan aadnaa ilaa Wajeer iyo North Eastern waa dhul aad u kulul uma fiicno marka dadka safray uma wanaagsan gawaarida ay u fiicneen dhinac walbaba sidaas la ajligeed yaay dadkii ay aad ugu bixi jireen habeenkii maadaama lagu dhawaaqay oo la yiraahdo hadana habeen ma socon kartaan oo wax habeen socon karo ma jirto waa noon hoggaansanaa sharciga. Maryan Maxamuud Barre barnaamijka qubanaha VOA Nairobi.